هذا الكيسان بسم الله الرحمن الرحيم horta dagaalkani waa mashaqaad weyn dhibaatad weyn oo dadka u saameysay xaq dhaqaale ahaan iyo xaq bulsho ahaanba taasi oo keentay bulshada deegaanka iyada ku nool oo ah bulsho deegaankoodii loogu yimiday ahaatayna markaa inay noqoto in iska difaacdo wixii dhibaatay dhan walba kaga soo foodle iyaga oo mar kastaba u taagan in ay dhulkooda helaan kuna helaan si kasta oo ay iyagu xal uga dhiganayaan taasi waxay keentaa mar kastaba in iyaga daandaansiyo dagaal lagu soo qaado oo waynu arkaynay wixii ka dhacay jidkan u dhaxeeya Dila iyo Gabiley waxaynu arkaynay Doraatoole daandaansiga ay ku qaadiyeen xoolaha taasi hadda waxay keenaysaa oo bulshada ay u horseedaysaa bulshadu inay taatu lamida kaga jawaabi doonto haddii la deyn waayo macnaha waxaan dhacaya mar kastaaba imanaya oo ay bulshadu adkaysigeegu marka ka dambaysa soo yaraanayo iyadoo ay tahay in ay bulshadu waxa la wixii raadee dhul ninkiisiiba iska leh oo maanta adiga haddii dhulkaaga lagu soo doonto waxaad xaq u leedahay oo ay lagu sheegayaa inaad ku difaacanto wixii daardaarsiina aad iskaga hortagto taasi ayay markaa bulshadaydu had iyo jeer u taagan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh reexareedku dagaalsan maxamed faarax anigoo ah 16 jir oo halka lagu qashay dadkayagii magaalada Gabiley agteeda oo halkaasi cawantadii ku soo doontay dadkii iyaga oo safar tagay oo halkaasi ku qasheen afar iyo xilmidolid waxaan iga sii daayare iga yaryarna warkaas oo kale way hayaan oo warkaa way hayaan habeen oo ka sheekay السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وحال رضا مختار عبد الله سليمان ururka dhalinyarada Dilaad gudoomiyoogii baan ahay marka waxaan ka hadlaa saaka dhibta soo noqonaysa waxaan laga qabanay dad dana gaar ah ay wataana ay labada reer isku dirayaan taasoo orolba dib soo noqonaysa iyo halkan oo booliska la keenay ay orolba xoolahan laga qaado loogu geeyay halkan ay ku cunayaan ay dawladda xagoogana ka tirsan yihiin dad dhaxdhaxaad ah marka waxaan sheegayaa intay goor tahay in hawsha wax laga qabto oo dadka xoolahoogana loo soo cusho sidii arinta hay'adna lagu dhameyn jiray laba reer oo islaayana hawlahooga lagu dhameystiri jirina lagu dhameystiro oo laga daayo danaha gaarka iyo danta gaarka shakhsigu leeyahay uu ku fushanayo marka iyadoo ay taana kow ka tahay dawladdu oo hawsheedii gabtay soo dhawaa dad baa lagu dilay dadkaas in yar ka bacdi waxa soo maray meeshii booliska halkii dadkii ay kaga daba tagayeen soo qaban laayeen ayaaba la geeyay Boorama marka ta system kaliya hawlo kaliya loo galo hawlo aan tii ahayn loo diray talabaadna waxaan u raxlaa hay'addu wixii saaran hawshaas wayna si degdeg ah hawsha u dhameysay oo wasaaradda arrimaha gudaha oo laga daayo hawsha loo hoos dhigayo madaxweynaha la leeyahay isaa ku shaqale marka madaxweynuhu wuxuu amraa marka waxa ku soo gabagabeeyaa dadka intii la isku diraala danta gaarka laga raacala in la eego danta guud oo wadanka iyo maslaxada dadka shacabka reer Soomaaliland bismillaah waxa kale oo aan kan ku daray intaas dadkan walaalaha yaga is dhalay ee abtiyaasheeda ama abtaaru nahay inay ka waantoobaan dagaalka foos xun ah dagaalo wadanka hore loo soo galay kaas wali waxaan sameeyay wali aan la sameyn ama ilmo yar haq aasano gubaan ama cid kale wadada aan hawsha shaqo ku leeyahay ku sameeyaan wali waxa kale kama dhicin wadanka marka waxaan u raahdaa ha iska daayaan waxa foos xun iyo talaabooyinka foos xun ay qaadayaan waxa kale oo raahdaa anagoo dhibtaasi nagu dul dhacday ayaa haddana Soomaalidii kale aan la kaftami karlaan taa maxaa keenay waa laba reero meel ma kala tagano ilaa inta adduunka harayna carradaydu saas u isugu jiraysa marka haddii kuwaasi xumaadaan iyo kuwan xumaadaan baba labadiiba ceeb bay noqotay marka inay ka waantaawo ma nu sheegalaa dhibta foos xun iyo ficilada foos xun leh qof aqliga garaad lagu ku kici karin inay ka daayaan ceebtiyo falxumadana ay naga daayaan